farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo markii labaad ama sanadkii labaad maalinta dhisbeerista qaranka. waxaan kaloo dhammaan shacbiga Somaliland iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada uga mahadnaqayaa inaynu gaadhay taargetkeenii ahaa in la beero 600 kun oo geed. siyaasadda xukuumaddu waxa weeye madaxweynaha koowaad in la beero 3 milyan oo geed. sidoo wasiirku sheegay iyadoo abaara jiraan iyo duruufo adag berigii dhaweyto way ku guuleysteen in taargetkii la gaadho. waxaan filayaa hadday abaaruhu inaga yaraadaan inaynu taargetka dhaafno haddii aan la yidhaahdo. guud ahaan waynu ka wada warqabnaa deegaanka inuu yahay nolosha bani aadamka. innagu xoolo dhaqataynu nahay, beerana de waynu leenahay. mar kastoo deegaanka la jaro dhibaatooyin badan baa ka dhasha, xaaluf baa ka dhasha, roob yaraan baa ka dhalata, abaaraa ka dhasha. marka intaasoo dhambe waa sababa bay u tahay soo noqnoqodka abaaraha. marka dhammaanteen waxaan ku boorinayaa inuu qof kastaaba geed beeri karo. taargetku waa kaas, laakiin qof kastoo Hargeysa ku noole guri buu ku nool. marka wuxuu u baahan yahay inuu gurigiisa dhir ku beero, ama cunto ku beerto, ama khudrad ku beerto oo wax soo saarka uu kordhiyo. waxaasoo dhamme deegaanka ayay kobcinayaan. maanta waa maalinteennii qaranka ee dhir-beerista, waana maalintii dunida ay xusaysay maalintan oo kale. waxaan is leeyahay marka la arko inaynu inagu wax qabsanayno, marka la arko inaynan deegaanka ilaalinayno, dadkuna waxay naaminayaan inaynu mas-uuliyiin nahay, deegaankana ilaalinayno. waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay dhir-beeristaas. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta ama wasaarad kasta oo ay wada shaqayn leeyihiin. wasaaradihii halkan laga sheegayey dhammaantood oo iskaashi uu ka dhaxeeyo wasaaradda deegaanka guud ahaan. waxaana deegaanku waa mas-uuliyadina saaran ilaalintiisu. xukuumadda, shacbiga iyo cid kasta oo ku nool dalkan waa mas-uuliyad saaran. marka waxaan ku boorinayaa inaynu deegaankana wada ilaashano. haddaynu deegaanka ilaalinno oo aynu ka dayno inaynu dhirta gubno, oo aynu dhuxul ka dhigno dhirta, iyo inaynu iska digno kolba meel aan qorshaysnayn oo aan magaalo loogu talagelin oo ay dhibaato u keento xoolihii iyo deegaankiiba. waxaan ugu mahadnaqayaa booliska oo ammaan badan ka sheegeen wasaaraddu inay gacan siiyaan howlaha qaran ay hayaan. qof kastaaba ha ku baraarugsanaado, aynu dhammaantiin ka qayb qaadanno ilaalinta deegaanka oo ah nolosheena. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.